haddii ceerigaabaan konton sano oran jirnay waxa weeye 4 beelood baa wada degay 5 beelood baa wada degay diir daarood baa wada leh waxay ku dambeyn doontaa taariikha waxa weeye ceerigaabo waxa weeye in cid dalhi ay sheegato waxa la yiri garaadaalino diidan nabad iyo dacmeenimanka yaal baad inta duula leedahay waxa la yiri daanada isaaq waa dawirisaane hadba dawral faran baa ka kaca nimanka daarood dadka oo nabad isaga daaqaya buu dacar ku ogaayay wixii daacuflay laga sabray dibadda keena وعلاد جندر وأنا علاد هذه الشيء اللي جوف فكرة يحوي نبضي علاد كي تون تبها النقدين حركة وحوي أي مرون قعن تقول دكان تاسو أنت بيحوي أنت عركو تشرو وتشرته واحد شري شر بدو يكون بيك السعودية مقالة دبران قبل كسنة وسوق بقى قدبنا أي كصباحين قدبنا ضدكو سيابك الدول أيوه فسرته أديك محا قدبنا خاق بحي وحي قدبا وحوي جودي اللي قصة ميستي نمن الملترية اللي يروح ويا خبراء بندوننا ماليد بندوننا هرتني ما نكسويرنا عرقابا نقبصنا إساقا وحوي كحاقنا ندبوق الحجسة وأرنتها عرقابا وحوي سي شيل حسن وقحضنا وحن ما أنت أسوي شيء يا حوي إن الباب كاسو وحرمي ما أنت أفرت وشيء وحوي وكدوا لي يوم مركزك وحوي دجال كعرقابا وكسلسين مكبرن كي وقدم بيه وحوي ده القصة عن تطبع أفر وشيدو كلا سريسولي تأقدم بيسا وحوي وادول روكسي روح القرية ويدافطه وحوي يدلك الدفاع السومالي لانيو مدحوين عرها الضل فردينه اللي مدحوين السومالي لان بويه وحوي مدحوينه وصارتينه قرحاج سن مدينة وحوي موجية أنه هدانو قرحاج سنة وحوي عيدمو حوق لبا نقيننا عرقابو إما كانوا يتشوغان قار كلنا وكدرين نينا لغا قرين ماي دي قار القرمين يولو طلق لي وحوي قرمين تقلاني ويتشريسه shan kun iyo wixii ka badan haday doonaan noqdeen qaar ilaa ay dawladdu salka isku taagto aan aragno Soomaaliland xoog weyn oo aan simsimiiri raxanayn sidii waxa weey hore uga dhacday laascaanood kale markaan aragnana inta ka horeysana qaar aanu la hadayno haysanayno oo hadii beedekeed ku leeyahay watch dog la yiraahdo oo deegaanadeena oo ilaalinayno sameeysanayna ninka ceerigaabo u soo baayaana uu ogaado inuu deedaara ku leeyahay laakiin uusan ceerigaabo lahayn بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan oo hotelka Burco International ee magaalada Burco waxaan saaka si gaar ah uga kulmay ugaas Cabdiqaadir Xaaj Faarax Xaaj Cilmi oo kamid ah bahda dhaqanka iyo sidoo kale aqoon-yahanka reer Somaliland ugaasku waxa uu falanqeyn iyo ablaableyn ku sameeyaa hadba arrimaha taagan ee saameynaya dhaqanka dhaqaalaha siyaasadda iyo amniga Somaliland iyo geeyga Soomaalidaba ugu horeyn ku soo dhawow ugaas telefishinka Bulsha TV iyo xog warankan gaarka ah ee aan saaka kula yeelan doono su'aasha koowaad ee aan ku weydiinayana waxay tahay bal waxaad ka warantaa ama aad musawir naga siisaa xaaladda guud ee xilligan Somaliland ay ku sugan tahay gaar ahaan si gaar ah dhinaca amniga alxamdulillah allahu akbar aad baad u mahadsantahay fahmi kayse xirsiyow adiga iyo bahda saxaafadda iyo waxa weeye gaar ahaan Bulsha TV ba marar badan baan hada jeer kulanaa inta badanna de wixii kulba ay muhiim u aragn baan diirada saarnaa marka aad baan ku salaamayaa waad mahadsantahay waan dhawahay su'aasha koobaad waxa weeye xaaladda guud ee Somaliland dad waxay weydiisay runtii Somaliland waxa weeye gobolana waxay ku jiraan xaalado dagaal gobolada bari Sooliya Sanaag xagga kalena deeqayl ka yeedin insha Allah laakiin waxaan ku oran karaa guud ahaan markaynu eegno dalku waxaad moodaa in waxa weeye dadka waxa weeye ay waxa weeye qalbiyadoodu dareemayaan reereyn tan intii waxa weeye xukuumadda cusbayd ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu soo dhisay oo ahayd xukuumad hadii jeer dadku marka eegto waxa weeye dareenkooda guud ay leeyihiin waxay ahayd xukuumad cadaalad oo aan madaxweyne isaga ka horeeyay Somaliland uu soo dhisin oo dad badan waxa weeye ama sawirraba kala duwan hadii jeer muujisay runtii waxa weeye dadka aad bay ugu farxeen waxayna warkan waxa weeye talaabo waxa weeye isaga taariikhda u gali doonta waana madaxweynaha oo salaamaynaa waanu mahadsan yahay taasi hadaynu eegno waxa weeye arrimaha amniga inay dadku degaan oo dadku ay dareemaan waxa weeye inay wax u qabsoomeen amniga xoojisa marka dhamaan Somaliland markaad eegto waxa weeye waxyaalo ay xukuumaddan kaga duwantay xukuumadihii hore ayaa jira haddaad eegto xagga musuqmaasuqa la dagaalanka
waad moodo waxa weeye deyn cashuurihii la midaynayo haddaad eegto waxa weeye xagga waxa weeye dadka iyo waxa weeye doorka ay ku leeyihiin siyaasadda oo dhalinyaro badan oo dee uu xushay haddaad eegto xagga counterroolka oo dee aad moodo haddii bedelkeeda ku leeyihiin in indicator la samaysto dee mustaqbalka waxa weeye la isku dibageli doono haddaad eegto xagga waxa weeye beelaha Somalilandba diriya daaroodba sida wax loo siiyo aad oran karto waxa weeye dad cabqariya baa ka shaqaysay dhammaan waxaan oran karaa waxa weeye amnigu dee ilaahay halku wax dhigaa uun baa had iyo jeer waxa weeye ay wax yaalaan laakiin markaynu ka tagno in dee dagaal ay nagu socdaan ay dee soo qaaday huwantu waxa weeye dee wali soconaya dee sida kale waxa weeye alxamdulillah taamnigan ku soconna ogaas waxa jiray shir mudooyin ku dambeeyay ka socday magaalada Badhan ee gobolka Sanaag oo soo gabagabay qodobada ay ka soo baxeen qodobada dadku siyaabo kala duwan ayuu fasirteen adiga maxaa qodobada kaga baxay qodobadaas aniga waxa iga baxay anigu waxaan la fikirahay waxa weeye dadkii odhanayay dadka qaba qodobadaas inaysan qodobo nabad u adeegayahay runtii de qodobo colaadeed bay ahaayeen waxay ahaayeen qodobo waxa weeye la doonayo waxa weeye in cirgaabo lagu qabsado waxay ahaayeen qodobo waxa weeye gudi lagu samaystay niman military la yiri waxa weeye khubaraa baan doonaynaa maaliyad baan doonaynaa hartinimaan ku soo weeraraynaa cirgaabaanu qabsanaynaa isaaqaan waxa weeye ka xaaqayna hadii ay beedkeeda ku leeyahay daanigu taasaanu arkaa marka ama maakhir ha noqoto ama ha noqoto hadii beedka ku leeyahay waxa weeye khaatimo ama Puntland ay musdambeed u yihiin runteedu waxa weeye tay doontaba ha noqotee shirkaas wuxuu ahaa waxa weeye ay dee salaadiinta iyo garaadada reer Somaliland badankoodu la reer Somaliland ay gaadheen inuu lidku yahay Somaliland oo ahaa waxa weeye colaad maanta cirgaabo oo la doonayo in dab lagu sii shido halkii nabadda laga shaqeyn lahaa waxaana runtii anigu qabaa in waxa weeye colaadaasi ay tahay mid aan gungaabnayn waa colaad gundheer waana colaad hadii jeer lagu fikirayo waxa weeye nabad iyo colaadka ay doontaba ha noqdeen cirgaabo waxa weeye ay maruun gacanta ku dhigaan taasoo inta badan waxa weeye inta cirku jiro u jirta waayo danina dalkiisa laga ma qaadi karo waana arkaysid waxa weeye fahmiyo waxa weeye markay garaadadu hadlayeen garaad Cabdikariin oo kale sidii uu hadlayay waxa weeye inkastoo is xakameyn kari waayo dee uu hadlayay haddana waadiga arkay waxa weeye inuu leeyahay waxa weeye cid baa cid ku janno tagaysay hadii beedkeed ku leeyahay saas ayno ballan markuu dee gubaabinay waxa weeye hartiga annagu waxaan leenahay cadaabtiyo jannada ilaahay baa waxa weeye ku shaqalo annagu cidna lama haysano laakiin waxa weeye adigu haddaad dee janno ilaahay kula ballanto waxa weeye aad waxa weeye ugu dhawaanayso oo ballanqaad haysato dee waxa idin dagaalada safka horeba soo gashaad maalmaha ugu horeysaba dee xashto hadii ilaahay ka dhigo laakiin inta ka qaylinayso boosaasi agteeda aad ka soo qordiinleynayso dee waxaan ku arkaa oo adigu hadii beedkeed ku leeyahay dawdarkii dee uu sheegay yawle dawdar gabigii yawle waxa ku jirtay waxa weeye kelmado oranaya waxa weeye waxa la yiri in hebel dagow anigu waxaan ku bedelayaa wax la yiri garaad hadii beedkeed ku leeyahay daalino garaadaalino baan ku bedelayaa moogti garaadaalino diidan nabadiyo dacmeenimanka yaal baad inta duula leedahay wax la yiri daanada isaaq waa dawirisaane hadba dawral falan baa ka kaca nimanka daaroode dadka oo nabad isaga daaqaya buu dacar ku ogaayay wixii daacuflay laga samreebay dibadda keena marka waa dawdarkii uu sheegay waxa weeye yawlo oo dawdarkuna waa ninaan jabkiisa iyo guushiisa kala aqoon ee hadii jeer iska qeyra socda oo emotional oo caadifid hogaaminayso marka waxaan leeyahay hadii cirgaabaan kuntu sano oran jirnay waxa weeye 4 beelood baa wada degay 5 beelood baa wada degay diiray daarood baa wada leh waxay ku dambeyn doontaa taariikhaha waxa weeye cirgaabo waxa weeye in cid leh ay sheegato laguna soo galo magaceedu looga haybaysto waxa jirtay gudida guud ee beelaha garxajis ee aad ka soo jeedaa in ay hore nabad uga baaqeen colaadda bariga ee sool iyo hadda Sanaag mid ka soo cusboonaatay haddana wax hadal laga maayo arinta maxaad adigu ka fahantay doorta gudida guud ee garxajis meel lagu bedelay meynaan ogeyn runtiina waxa weeye dee waxay dhisayeen madaxweynaha waxa weeye Somaliland bay kala mid ahaayeen inta ka dambeysay culaadu waxa weeye ay cirgaabo ka hulaaqaysan wali wax war kama hayno marka dee su'aaluhu waxa weeye inaga degdegaynin waxaan oran karnaa waxa weeye maqardadii bay waxa weeye hadii beedkeed ku leeyeen meel ku daateen ma hadii beedkeed ku leeyahay dee arrinkooda wuxuu marka horeba ka ahaa waxa weeye madaxweynaha in kursiga geyn oo garxajisnimada ayaanay waxa weeye dee hadii beedkeed ku leeyahay kuba fikirin inay garxajis hogaan u yihiin ma halkii la oran jiray baa waxa weeye
niri gaaroodi iyo waxa weeye nin galbeed mahmaadi wax weeye Soomaalidu oran jirtayba say doontaba ha noqoto guddiga garxajis baan inuu kooga waxa muuqata wax weeye inay ka gaabiyaan arrimahan inay ka hadlaan oo waxa weeye haday colaad iyo nabad bad tahay ay ceerigaaba tagaan waxaan kula talin lahaa war fadhiga ka kaco hadaad nabad haysaana ceerigaaba togo dicida nabadeed la qaadanaysa balidu ku keena hadii kalena dadka la dareen noqda laakiin waxa weeye ninuna galbeed ha ka hadleen ninuna bari nin dabo garxajisa oo arinta ceerigaaba waxa weeye si jilicsan uga hadlana waxaan maanta u soo jeedinayaa waxa weeye in albaabkaas uu xidhmay waxa weeye ninka madax dhaqameedka waxa weeye garxajisa doonaya inuu ka hadlo arinta ceerigaabo hiiliyahoba maanta loo baahan yahay iyo hadal iyo halaabo ku hayaba de ha tago waxa weeye halka ay leedahay hadii ay ka dhigo taasna waxa weeye soo jeedinaya guddiga garxajisna waxaan leeyahay wadulka la doonayo waxa weeye la soo weeraray waa ceerigaabo waa dhul isaaq waa dhulka weeyaasha Soomaalilandnimadii waxa weeye dadkii soli weeyday qaar badan bay soli weeyday oo doonaya dal durugsi faabiyo waxa weeye maanta afarta ujeedada waxa weeye uu ka duulayo marka degto waxa weeye dagaalka ceerigaaba ay ku saleysay marka badan kii ugu dambeeyay waxa weeye lagu soo hantatabay afar ujeedo kala sarreeyay ta ugu dambeeyay waxa weeye waa dal durugsi weey taasna waxa weeye marnaba dhici mayso insha Allah saasaan filaynaa guddiga garxajisna waxaan leeyahay war garxajis waa labo garxajis bari ceebna taariikhda muu keenin Soomaalina way garanaysaa inaguna waynu garanaynaa magaceennana way nooleeyeen war garxajis galbeedo siiba ciidagaliyo habar yooris galbeeday Soomaalidu waxay ku maamaadaa nin yiri waxa weeye walaal ii hiili walaal la'aan ma waxa doonaysaan in garxajis bari intuu idin yimaado yiraahdo waxa weeye warda dagaalka soo gala warda ciidan keena warda qalab keena okay aaban degdego oo waan ogahay inayaan xog la'ayn oo waxa weeye aydan diyaar garow la'ayn waa hoostiina wax ka wadataan oo waxa weeye mararka qaar kood deeladii wartaayadu anaga waa jabka kiil bay ku cabaysaa laakiin waxaan idin leeyahay war wax la qariyo way dhaaftay waxa weeye dalka difaaca Soomaaliland iyo madaxweyne Ciraha dul fadhiyeen ilaa madaxweyne Soomaaliland buu yahay waxa weeye madaxweynuhu waa saarteen garxajisnimadiina waxa weeye muujiya aad iyo aad baan waxa weeye runta arinta waxa weeye ugu adkaynaya guddiga garxajis iyo madax dhaqameedka garxajis iyo inta kale ee waxa weeye arika waxa weeye ceerigaabo ka damqanaysaba waxaan leeyahay dabxeerta hadaynu nahay waa habar jeclo iyo waxa weeye iyo habar yooris waxa weeye ama isaaq bariba isku wada dar ilaa iyo arabadii gaad ilaa iyo xarshin bagaad war inteena dabxeer tahay aynu istiraatiijiyad midaysan dagaalka ka yeelano hadii ilaahay ka dhigo ciidan madaniya ayaa jira oo gobolka Sanaag ku sugan iyo Sool qayb ka mid ah bal markaad si dhow u eegto bal ciidanka madaniga iyo xaaladooda iyo mustaqbalkooda ka war ciidanka madaniga waa kan dalka difaaciyo waxa weeye ciidankii qaranka buu hadiya jeer waxa weeye u yahay taageero marka qaar koodna isagaaba ka farfarwaaran marka waa ragun difaaciyo dalkii oo Soomaaliland difaaciyo ciidan Soomaaliland mustaqbalkana insha Allah waa la qarameynaya laakiin ciidanka waxa weeye qarameyntiisu wax xukuumadda u taalo waxa si muhiim ah ciidankaas waxa weeye la taakuleeyo waxa weeye wax la taro oo waxa weeye waliba si coordinated ah waxa loo yaqaan hada jeer qaabaysan wax loo taro aan balaqayn ragga salaadiinta ah waxa weeye ay ugu horeeyaan Suldaan Cismaan iyo waxa weeye boqor buur madowna aad bay ugu mahadsan waxa weeye hadii beedkeed ku leeyahay bayaankii ay jeediyeen waana ku taageersanahay nin kasta waxa weeye garxajis wax garanayaan nabad wadnay hadii nabadii la waayo macnaheedu noqon mayso waxa weeye inaynu dalkii bixinoon idhaahno sidii laascaanood ceerigaabana ha ku dhacdo marka waxaan leenahay insha Allah hawshaasi waxa weeye inay u dhacdo oo loo qabto waxa weeye mid muhiim ah ciidanka madaniga mustaqbalka waa la qarameyn doonaa dambaana keentay hase yeeshee waxa weeye qarameyntiisu arrimo badan bay ku xidhantahay kulliba annagu haddaanu garxajisnay waxa weeye ciidamo xoog leh baanu geynina ceerigaabo imikana way joogan qaar kalena waa ku dareen ninna laga qarin maayo qaar la qarameynayo loogu tala galay waxa weeye in qarameynta galaana way jiraysaa 5,000 iyo wixii ka badan ba haday doonaan noqdeen qaar ilaa ay dawladdu salka isku taagto aanu aragno Soomaaliland xoog weyn oo aan simsimiirixanayn sidii waxa weeye hore uga dhacday laascaanood kale markaan aragnana inta ka horeysana qaar aanu la hadhayno haysanayno oo hadii beedakeed ku leeyahay watchdog la yiraahdo oo deegaanadeena oo ilaalinayno sameysanaynaa oo 3,000 iyo 2,500 qiyaas inta u dhaxaynaysa guud ahaan xaaladdan colaadeed iyo tan amni ee gobolada bariga gaar ahaan wadiba hadda imika ceerigaabo halkay ku dambeyn doontaa baad isleedahay markaad qiimayso
maxaad si xal u aragtaadu arrintaa waxa weeye dagaalada ka socda Ceergaabo waa arrin waxa weeye istaraatiijikali waxa weeye qoto dheer ma aha arrin waxa weeye inta aynu arkayno kaliya dhammaan maamul goboleedadan waxa weeye hadii midkeed kule meesha laga dhawaaqaya qaarna aan tayada badan lahayn qaarna waxa weeye sida Puntland oo kale aysan gobolkaba sheeganayaan ay leeyihiin dastuuriyan baaba anaga Soomaaliya sanaag naloo yiraahdo Soomaaliland Soomaaliya sanaag iyaduna inay leedahay soo haysataa ilaa iyo waxa weeye geedkii aynu sheegi jirnay baad waxa weeye idana u go'aano kamay tanaasulin taasi waxay ku muujinaysaa in isjidooyin fara badan jiraan macnaheeduna waxay noqonaysaa waxay ku dambeynaysaa in cid kastaba deegaankeeda waxa weeye lagu karaameeyo waxa weeye heshiisa oo nabadgeliya dalka lagu wada noolaado oo sidii waxa weeye ay Soomaaliland soo jeedisay garaadka waxa weeye in garaad wilwaalow soo jeediyay hadii beedkeed ku leeyahay ummadda waxa weeye aanay Soomaali colaadu ka tilneed nabad laga tariyo cid kastana deegaankeeda lagu ixtiraamo ninka Ceergaabo soo baayaana uu ogaado inuu deedaara ku leeyahay laakiin uusan Ceergaabo lahayn waa fahmi kay saxirsi bulsha TV Bro